warbixino hordhaca ayaa laga soo sheegayaa gobolka Gado ku aadan abaar iyadoo saameysay guud ahaanba gobolkaasi. gudoomiyaha degmada Doolow Gado ee Soomaaliya Aadan Barre Cali ayaa waxa uu ka warbixiyay kulan la qaatay qaybaha kala duwan ee odayaal dhaqameedka waxgaradka ku dhaqan magaalada Doolow. kulankan ayaa diiradda lagu saarayay sidii loo saari lahaa gud iyagu la socda xaaladda abaaruhu hadba heerka ay marayso. haddaba warbixintan waxaa ka soo diray magaalada Doolow wariyaheena Maxamed Qani Xuseen Kuusow. maamulka degmada Doolow Soomaaliya oo hogaaminaya gudoomiyaha degmada ayaa faahfaahin ka bixiyay shijiraad oo ku qabtay gudaha degmada Doolow Soomaaliya sir ay la qaateen qaybaha bulshada oo looga arrinsanayay in la magacaabo guddi wax ka qabanaya arrimaha abaaraha ee ka jira gobolkan Gado. gudoomiyaha degmada Doolow Soomaaliya Aadan Barre Cali ayaa TV-ga caalamiga ee Soomaaliya u sharaxay guddiga ay dhiseen ayadoo sidoo kalena afayeen guddigaasi goobta uu hadalka jeediyay. waxaan talagalnay inaan qabanno guddi abaara oo gurmad ah oo degdeg ah oo dadweynaha wixii awoodnada ah la gaara. gudoomiyana waxaan ugu dhigay Sheekh Cabdiweli oo ah iimaankii masjidka gurmadkaas oo aan qabanay 14-15 qof oo u talagalnay guddi aabil guddi dhaqaale guddi survey soo sameeyo oo dadka fadhiyada ugu taga ayaan qabanay. waxaana la joogay oo goobjoog nalahay afayeenka gobolka shaqaadan maday. إن شاء الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وحنا قرشيسن أدي إلهي إدمو دتك ولالهانا عبارها يكون دعين الدنيا دودي أي دعوتي كاجيسن إن أن أقول منه أن أقبل وح الله وحي كران كنجا أيضا أنا إدنا أنا سجينين كدق معهان كقبل هان إن أن أقول منه أيان إن شاء الله يا نقر سيسن وحان إيريدا إن دقمدا الدولو إن ما دام ضدك أي دبعتي سنين هي ذا عاونا هنا إن ولي إن فربنا أي سنشرين إن وح عاونا أي سن هاي سنين فوح على إسكودي إن لا السماية إسكودي إن وح لقبسن كرا ومد العاون كرا مر هدي عاون ضدك أي سن هاي سنين عبارة يون يا دبعت أي هيان إن حقيقة أرنتاس وإسكودي آد يا آد مهم سن وحنا آد هاد قالنا يا بالشدة قيبة كلا دوان يا مامور الدجمة إن دولو أو إسكوتش السمايي بهوشة السواق بنقابية قدوميها الدجمة دولو إن شان آد المدوبة إن شاء الله تعالى بالشدة ضمانة ويسود وين إن جدي بان حالكاس لقى قبتي أو شن يطبن أو أبارهاس يجرمت سماينا يو إن تلابد كهذا هذا أي سماينا يعني وحي قاتين إن لا سمايو السرفي ضمان ميلها لو دبعتيسينها إن لا صاد المرأة ولا صاركه كدي من الدتك جرم الله سمايو إن شاء الله تعالى يسكت ضيقاس يوم مركان وحقب سنة إن شاء الله وحن كعد سنينا إن دولة فدرال الصومالية إن أمد الصوماليات أو جارهان قبل كان كسوجد جالدها يوم ما أركتي ضيقها إن عالم كوسودي ويا مقدش إيمانية إن أمدان دبعتيسن أو ضمان قبل كان كنول جارهان دعوين كذا عن كارلينو إن ينسوا عويان بان كعد سنينا أدبل ما سنتين. guddigan oo ku dhawaaqay maamulka degmada Doolow Soomaaliya ayaa lagu talagalay inay wax ka qabtaan arrimaha abaaraha iyadoo ugu horreyn bilaabi doona sarfee ay ku sameynayaan goobaha ay ka jiraan abaaraha iyo dadka waxyaabaha ugu daran ee xilligan la gaarsiinayo. waxaana sidoo kale baaq u direen dhammaan beesha caalamka iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya in gargaar ay la soo gaaraan bulshada ku dhaqan gobolka ee dhinaca miyiga ah oo xilligan abaaruhu ay saameeyeen. Maxamed Qani Xuseen Kuusow, TV-ga caalamiga ee Soomaaliya Channel, degmada Doolow Soomaaliya.